shir muddo 2 maalmood u socday gudida wanaag farista iyo xumaan reebista oo 27 bisha iyo 28 bisha waxa ka soo qayb galay 35 xubnood oo kamid ah gudida wanaag farista oo ka kala yimid gobolada dalka Soomaaliland intuu shirku socday ayaa lagu lafaguray sidii hay'addu uga shaqeyn lahayd arrimaha khayriga iyo wanaaga bulshada Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka shaqeynaysay intuu shirku socday ayaa si rasmi ah loogu doortay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo sidoo kale xogayaha gudida wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland oo muddo xileedkoodu noqonayo muddo 2 sano halka gudida sare ee wanaag farista iyo xumaan reebista uu noqonayo muddo xileedkoodu muddo 3 sano qodobo ka soo baxay waxay madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyeen inuu joojiyo xeerka kufsiga oo ka hor imanaya sida ay tilmaameen shariicada islaamka waxa si rasmi ah u shaacinaya qodobada ka soo baxay shirkii gudida wanaag farista iyo xumaan reebista Soomaaliland Maxamed Iidle 18 bisha Muharram 1440 waafaqsanna 28 bisha 9aad 2018 soo gabagaboobay shirweynihii saddexaad ee gudi hay'adda wanaag farista iyo xumaan reebista Jamhuuriyadda Soomaaliland kaas oo ay ka soo qayb galeen ergooyinka kala socda dhammaanba gobolada Soomaaliland waxa ay gorfayn iyo falanqayn kadib shirweynaha go'aamiyeen arrimahan soo socda waxa ay doorteen golaha guud ee shuurada oo ka kooban 22 xubnood matalayna dhammaanba gobolada Soomaaliland oo dhan 2 in golaha shuuradu yahay golaha ugu sareeya ee hay'adda si waafaqsan xeer hoosaadka hay'adda 3 golaha shuuradu waxa ay doorteen golaha fulinta oo kala ah 1 gudoomiyaha guud ee hay'adda oo ay doorteen Sheekh Awil Faatax Shire 2 gudoomiye ku xigeenka guud ee hay'adda Maxamed Cabdi Ismaaciil Raabi xoghayaha guud Sheekh Axmed Maxamed Suldaan waxay bogaadinaysaa oo ay hambaliyo gaar ah u diraysaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxay ku bogaadinaysaa joojinta xeerka kufsiga waxayna ugu baaqaysaa in la joojiyo lana hor istaago xeer kasta oo ka hor imanaya shariicada islaamka 2 waxay ku baaqaysaa in golayaasha qaranku u hoggaansamaan awaamirta Ilaahay una dhaganuglaadaan baaqyada culimada waxa ay hay'addu ay u digaysaa cid kasta oo ku lug leh duminta iyo khalkhalinta dhaqanka suuban ee shariicada islaamka waxa ay hay'addu baaq nabadeed u diraysaa walaalaha ay colaadu dhex martay ee Sool una dardaarmaysaa inay u dhaganuglaadaan nabadeynta khilaafkoodana ay ku dhameeyaan wada hadal geesta kale xubin kamid ah gudida wanaag farista ayaa iyaduna ka mahad celisay wada shaqeynta fiican ee ka dhaxaysa ciidamada biliiska iyo garsoorka iyo dawladda ay tahay hay'ad shacbiya oo madax bannaan oo hawlaheeda u madax bannaan lana shaqeynaysa dhammaan wasaaradaha markaa dawladda gaar ahaan wasaaradda awqaafta waxaan u mahadnaqaynaa dawladda khaasatan booliska iyo maxkamadaha oo la shaqeeya hay'adda oo kala shaqeeya xumaanta la reebayo iyo wanaagga dadka la farayo taasoo dan inoo ah aakhiriya adduun dhammaanteen waan idinku bogaadinaynaa